muqdisho waxa ay ugu dambeyntii u dabaaldegaysaa ahaanshaha kaalinta koowaad ee caasimadda ugu wasaqda badan caalamka. guusha dadaalkaas waxaa si wadajir ah u dhaliyay dhammaanba maamul iyo shacab oo iska kaashaday in ay muraayadii dalka si adag u xejisato booskeeda weyn. halganka loogu jiro sii wasaqeynteeda waxa uu ku sii socdaa si aan horey loo arag. dhab ahaan gees walba oo aad eegto qashinku waxa uu noqday mid aragiisu nagu batay oo dhinac waliba oo aad jaleecdo uu kaaga gacan haatinayo, laga bilaabo talaabta ugu horeysa oo aad aqalkaaga uga soo baxdo, dhabaha aad soo marayso, laamiga aad gaariga kasoo fuulayso ilaa aad ka timaado goobtaada shaqada ama waxbarashada. qashinka waa shayga qura oo meel uu kaaga harayo aysan jirin, xitaa haddii aad safar miyi iyo magaalo aad isku marayso. sida aad u ogtahay in hooskaadu uusan kaaga go-ayn, qashinkuna meel waliba waxa uu kuu yahay marti soo dhaweyn leh. balse biyo-degeenada magaalada ayaa kuu sheegi karaa xaddiga uu la egyahay qashinka magaaladu soo saarto maalin waliba, kaas oo intiisa badan ku dhammaada oogada dhulka. haddii aad rabto in aad fahamto baaxadda nadaafad darida ka jirta caasimadda, meelahani waxa ay ka mid yihiin tusaalayaasha nool ee iftiimin kara. saaka oo aan booqasho ku tagnay mid ka mid ah goobahaas, waxay indhaheenu qabanayeen qashin nuuc walbo isugu jira, una badan bacaha, balaastikada, baktiga iyo haraadiga walxaha la nacay oo dadku ay iska soo fogeeyeen. indhuhu ma jeclaysanayaan eegmada ka jirta biyo-degeenkan. daqiiqadaha aan ku jirnay duubistana waxa aan u dulqaadanaynay urta qarmuun ee kasoo baxaysa meedka xoolo baktiyey oo goobta lagu soo tuuray. dadka jaarka la ah biyo-degeenka waxa ay qadyaan ka joogaan urta iyo qashinka lagu soo fogeeyo oo aysan jirin gacan dowladeed oo wax ka qabata. qarmuunka maalinkii waxa u sii dheer cabsida habeenkii marka uu gobolku dumo oo aan lagu dhiiran karin in la ag maro. xoolaha ayaa si kastaba calaf ka soo raadsha haraadiga cunooyinka iyo dheefta kale ee lagu soo daadiyo. alaabana waxa ay ka qaadaan qabsin ood uga yimaada bacaha iyo kartoomada ay ku liqaan. waxaa kale oo qashinku uu mararka qaar ilo dhaqaale u noqday danyar badan, kuwaas oo caagadaha balaastikada ah iyo wixii maangal ah oo ay ka helaan u qaada warshad dib u eegis ku sameysa balaastikada oo dhacda duleedka magaalada. hooyadan oo aan kula kulannay goobta waxa ay ku guda jirtay shaqadeeda maalinlaha ah oo ay qashinka halkan lasoo dhigo ugala baxdo wixii ka anfaca. haddii si dhab ah loo fahmo in qashinku yahay kheyraad lacag fiican laga sameyn karo dib u isticmaalkiisa, waxaa lagu guuleysan karaa in magaalada lagu ilaaliyo nadaafad, bilic iyo ilqabad, iyada oo isla mar ahaantaana shaqo abuur iyo dakhli maalinle ah ay ka helayaan danyar badan oo qoysaskooda dhaqaale ahaan ay ku tirsan yihiin.